السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa EBC News Now. Dawadayaal ku soo dhawaada warka maanta waxaan idin akhriyi doonaa anigoo ah Mustafa Cabdullaahi. Taariikhdu waa 13 bisha August waa maalin Axada. Daawasho wanaagsan. qodobka maanta aynu ku soo qaadanayno warkeena waxa uu ku saabsan yahay dalka China. shirkaasi ay soo qabanqaabiyeen ururka loo yaqaano SCO oo la soo gaabiyey Shanghai Cooperation Organization. waxaa ka muuqda madax caalami ah oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha dalka India Modi iyo madaxweynaha China iyo madaxweynaha dalka Russia Putin iyo madax kale oo fara badan oo ka tirsan ururkaasi. waa tahay daawadayaal qodobkaas ayaynu ku faaqidi doonaa warkeena. shirka caalamiga ee ka dhacay magaalada Tianjin ee dalka China ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka loo yaqaano Shanghai Cooperation Organization isla markaana loo soo gaabiyo SCO. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wadamo badan. wadamada isla markaana waxa ay yihiin kuwo iyagu ah xubin ka ah ururka iyo kuwo iyagu lagu soo casuumay oo marti ka ah. haddaba wadamada iyagu xubinta ka ah ururkan ee aasaasay waxa ugu horeeya waa dalka China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran, Belarus. waa wadamada ugu horeeya ee iyagu soo qabanqaabiyey shirkan isla markaana hadda waxa uu ka furmay maanta Axada waxa uu ka furmay magaalada Tianjin. shirkan ayaa waxa uu dhammaan doonaa berito oo ah 1 bisha oo maalin Isniin ah ayuu soo gabagaboobi doonaa. haddaba waxyaalaha xiisaha leh ee ku jiray shirkan ayaa waxaa ka muuqday ra'iisul wasaaraha dalka India oo isagu shirkaasi ka qayb galay isla markaana xubinka ururka ayaa aad xiisa u lahaa oo ay wadamada reer galbeedka saxaafadooda dhami ay ka hadlaysay. Modi waxa uu la kulmay China madaxweynihiisa Xi waxaana loo dhigay roog cas isla markaana waxa si fiican u soo dhaweeyay madaxweynaha Xi. Modi waxyaalaha xiisaha u yeelay kulankan ayaa ah maadaama Modi iyo Trump ay iska hor yimaadeen oo madaxweyne Trump uu saaray canshuur aad u sareysa isla markaana uu joojiyo shidaalka uu ka iibsanayo dalka Ruushka. taasi oo caqabad ku noqotay India aanay ka maarmeen in ay shidaalka jaban ee raqiiska ah ay ka hesho dalka Ruushka ay joojiso ay ka furso weeday in ay ka hor timaado Mareykanka isla markaana ay u wareegto dhinaca iyo siyaasadda China. inkastoo markoodii horeba ay iskula jireen ururka BRICS loo yaqaano haddana ururkana waa ay iskula jiraan. cilaaqaadkooduna ma wanaagsaneen kadib dagaalkii 2020 dhex maray labada wadan ee u dhaxeeya xadka labada wadan ee buuraha Himalaya loo yaqaano halkaasoo ay ciidamo iska kala dileen. khilaafka halkaasi ka bilowday waxa ay u jaray cilaaqaadkii labada dal ka dhaxayn jiray isku socodkii labada dal ee dadka diyaaradaha. India waxa ay joojisay barigaasi diyaaradaheeda u gooshi jireen dalka China ayay ka mamnuucday. waxa kale ay joojisay ganacsigii ka dhaxayn jiray labada dal. imika shirkan ay yeesheen maanta Modi iyo China waxa ay kaga wada hadleen faa'iidada iyo muhiimadda uu leeyahay kulankoodani isla markaana waxa ay labadoodaba sheegeen inaan loo baahnayn in la iska hor yimaado ama la abuuro colaad iyo dagaalo aan loo baahnayn maadaama ay daris ra'iisul wasaare Modi ayaa waxa uu yidhi hadda ayaan baan dareemayaa nabadgelyo iyo xasilooni iyo deganaansho maadaama aan go'aan ka gaaray arrinta dhabta ah ee India ay la kulantay. sidaas daraaddeed warbixin ay soo saareen labadooda waxaa lagu sheegay in ay dib u furi doonaan isku socodka labada dhinac iyo dalxiiska isla markaana waxa ay daahfureen in laga bilaabo maanta oo bishu tahay 30 ay la furo hawada India iyo China ay isu furaan dadkuna ay wada socdaan diyaaradahuna hawada ay u kala gooshaan labada wadanba. sidoo kale waxa ay ku dhawaaqeen
in ay xalinayaan arrinta muranka xadka ee u dhexeeya china iyo india. waxaa kaloo ay dib u fureen ganacsigii iyo cilaaqaadkii ganacsigii labada dhinac, taasoo u ah guul china iyo india labadooduba. haddaba dhinaca kale markaanu ka eegno, madaxweyne trump ayaa waxa ay ku noqotay dhabarjab weyn, maadaama india ay tahay quwad weyn oo muhiim ah dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba iyo tiro iyo dad ahaanba. arrintan ayaa waxa ay dhabarka ka jebin doontaa madaxweyne trump go-aankiisii ahaa ee uu qaatay in india uu saari doono 50% canshuur ah haddii ay joojin weydo shidaalka ay ka iibsanayso dalka russia. modi beddelkeeda wuxuu qaatay inuu la heshiiyo china, mowqifkiisana waa uu caddeeyey. laakiin maraykanka iyo trump maxaa ay ku jawaabi doonaan? waa mid aynu sugi doono jawaabta trump. dhinaca kale, waddamada asia ayaa iyagu ah waddamo halboolu ah dhaqaalaha adduunka, isla markaana waxa uu tartan iyo xifirtan uu ka dhexeeya waddamada reer galbeedka ee yurub iyo maraykanku iyagu isku ah xulafada. haddaba dhinaca kale waxaa jira oo kale iyadana waddamo badan oo maraykanku soo eriyey ama uu cashuur badan saaray ayaa iyaguna kasoo qayb galay shirka, oo iyagu wuldaraynaya inay dhinacan bal ay ka helaan rajo wanaagsan oo ay caalamka kula xidhiidhaan. waayo iska xidhiirka caalamka ee waddamadu waxay qayb ka tahay nolosha waddan kastaba inuu noolaado ama horumar fiican gaadho. sidaas daraaddeed waddamadii trump soo eriyey ee ashiyada ee uu cunaqabateynta saaray oo dhan ayaa shirkan ka qayb gelaya, oo iyagu qaarkood ay marti ka yihiin. shirkan waxaa kaloo iyadana sidoo kale lagu marti qaadaa hay-adaha caalamiga sida united nationka iyo ururada kale ee caalamiga ah sida commonwealthka loo yaqaan, ururka commonwealthka loo yaqaano. haddaba waxaa la odhan karaa ururkan hadda shanghai cooperation organization inuu u dhigmi doono sida ururka nato oo kale, oo ay waxa ay ururkani iska kaashadaan amniga, ganacsiga iyo horumarka iyo maalgelinta intaba. haddaba waxa uu noqon karaa mid u dhigmi doona nato oo kale, oo ay markaasi ay ka hortagaan ururkaas nato iyo xulafada reer galbeedka, oo ay noqdaan laba quwadood oo iska soo horjeeda. ugu dambeyntii waxaad moodaa in shirkani waxa kasoo bixi doona iyo qaabka uu socdo in ay noqon doonto waxaa loo yaqaano new world order, oo macnaheedu yahay hogaaminta adduunka ee cusub. aad mooda in awooddii ay ka wareegayso reer galbeedka, isla markaana ay u wareegayso bariga iyo asia. haddaba waxaynu sugnaabaa waa waxaa kasoo bixi doona shirkaasi. dhammaan saxaafadda reer galbeedka oo dhan isha ayay ku hayeen maanta, waana ay ka faaqidayeen ama faaleynayeen. sidoo kale madaxweyne putin ayaa isna roog cas halkaasi madaxweyne shii kusoo dhaweeyey, isla markaana ay ka wada hadleen arrimaha dhexdooda ee china iyo ruushka. waa saaxiibo gaamuray oo iyagu muddo isla soo shaqaynayay, imikana marxalado adag dhex taagan maadaama ay ishayaan madaxweyne trump iyo reer galbeedka. dhinacna ruushku uu dagaal kaga socdo dalka ukraine. haddaba waxa aynu sugnaa waa saadaalinta adduunku halka uu u socdo, waxaan loo yaqaano world orderka halkuu ku dambeyn doonaa. ma reer galbeedka ayaa gacanta ku hayn doona, mise waxa uu wareegi doonaa asia? su-aashaasi idinka ayaynu idin weydiinaynaa. asxaabta na daawanaysay kusoo qora jawaabihiina commentiska hoose, nagula soo wadaaga fikirkiina iyo waxa aad u aragtaan xaaladani waxa ay ku dambeyn karto. asxaabay, warkeena qodobkaasi halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. haddaba naga ilaawina commentska, liketa iyo sheerta. waxaynu ku wadnaa hawsha miiriyaha aynu wadno ayay ku xidhan tahay. sidaas daraaddeed fadlan waad mahadsantihiin daawashada aadna daawanaysaan. waa mustafa cabdullaahi odan leh. isma dhaafno iyo kulan dambe oo xiise leh. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.